kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ciyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan daawadayaal barnaamijkeena ku dul istaagi doonaa xaaladaha cakiran ee ka soo cusboonaaday dalka Itoobiya xilli afar jiho maalintii shalay ambabaan iraadi 24 saac ay ugu dambeysay ay dawladda Itoobiya dagaal xoogan ay ku qaadaday xoogaga Faano kuwaasi oo isku daysay in ay dib uga qabsato magaalada istiraatiijiga ee Taabor haddaba dawladda Itoobiya oo dagaalkaasi ku fashilantay ayaynu daawadayaal waxyaabaha fashilay ayaynu ku qada dhigi doonaa dhanka kale ninka xaq jirka ahaa ee lagu magacaabi jiray Iskandar Nega ayaa ka hadlay in xukunka dalka Itoobiya gaar ahaan midka uu haatan hogaaminayo Abiy Ahmed uu gabagaba marahayo haddaba ninkan oo taageera culus ku haysta deegaanka Amxaarada iyo waliba mucaaradka dalka Itoobiya waxyaabii qoray ee saxaafadda dalkaasi Itoobiya ay sida weyn u qaada dhigayso ayaynu daawadayaal ku dul istaagi doonaa barnaamijkeena dhanka kale Soomaaliya oo aad moodo in looga talaabsaday haadan ayaynu sidoo kale ku qaada dhigi doonaa xilli dawladaha Kenya Djibouti iyo dalka Turkiga ay ku cadaadinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu wada hadal ula galo ra'iisul wasaaraha gobolkiisa sii dhacaya ee Itoobiya haddaba hadii uu kulankaasi dhaco oo la filayo in goordhow ay fooda iska maleegaan iyo Itoobiya oo 18 cisho gudahood rabta in ay heshiiskii maamulka Somaliland ay kula gashay in ay kaga dhigto heshiis rasmi ah oo halkaasi fooda lagu kala qaado haddaba arrimahaas oo la isku qoofalanayeen daawadayaal ku qaada dhigi doona balse sida caadada ahayd ba waxaynu ku horeyn doonaa haduu rabeen dalka Itoobiya iyo waliba qalalaasaha ka soo cusboonaaday waqooyiga dalka Itoobiya territory oo dhaqdhaqaaq xooggan durba ka bilowday iyo waliba jabhadii Looranjare TPLF oo isu micyaalisanaya laftigoodu kama manaan doonaan magaalada Muqdisho oo isu badashay magaalo beelad laftigeedu fooda ayaynu ka maleegi doonaa waxyaabaha ay 24 saac bulshada Soomaaliyeed ay ku wareeriyeen haddaba barnaamijka waxa igu weeliyo stuudiyaha saaxiibkay ninka inta badan ka faalooda gabi ahaanba geeska Afrika waa Dr. Shido oo aan ku horeyn doono xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya soo dhawaada barnaamijkana sii share gareeya saaxiibadiina la wadaaga ayaanu idin leenahay idinku saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsan Dr. Shido soo dhawow waan dhawaay saaxiib Itoobiya waa horta waa la yaab way Soomaalida haday horta Itoobiya ay ogaan lahaayeen waxa weeye meesha ay horta marayso marka Itoobiya warbaahinteedii iyo siyaasiyiinteedii iyo dadka Itoobiya wax ka qora ama ma garanaysa u dhunduleela shidow marka aad wareysato ama aad warbaahinta akhrisadeed ma garanaysa warbaahinta Itoobiya horta waxaad ogaanaysaa Soomaalidu inay ka warlacdahay Soomaalidu xaalkeedu uu iska noqday waxa weeye waxaan maqli jiray madax libaaxo ileen waxaas bay dhihi jireen marka waxa weeye cidku Itoobiya waa la yaqaanaa marka Soomaalidu oo 30 sano iska burbursan ay u booteen jirtay oo baad moodaa wali dawladda Xasan Sheekh Maxamuud inay futada yar meermeerinayaan horta meesha dawladda ma jirto 24 saac ugu dambeeyay waxa socday dagaal holaca oo la doonayo oo ciidamada makalakayaaga ee dalka Itoobiya ay ku doonayeen in magaalada istiraatiijiga Taabor la yiraahdo in ay dib ugu wareegaan ciidamada maxaan ku dhahay Faano magaaladan waa magaalo 200 oo kiiloomitir wax ka yar ayay hadii ay ku samogoli u jirta caasimada dalkaasi Itoobiya haddaba xilligii waxa la yiri dhargidii maxaan ku dhahay ninkii Mingista Hayle Maryan uu ma garanaysaa uu dalka laga ceyrinayo 1990yadii Eritreanka iyo nimankii TPLF markay wada socdeen magaalada markay mariyeen nimankii la oran jiray Amxaaro may waxaan ka hadlayaa dhargidii hore way ka alaaba urursadeen dalka Itoobiya haddaba bal xaalka meesha uu marayo iyo hubka la soo adeegsanayo noocyadiisa kala duwan bal nooga faahfaahin aad iyo aad baad mahadsantahay Colonel Faragodow waa sida aad sheegtay xaaladda Itoobiya aad bay u cakaran tahay adduunkana waxaad moodaa inuu ka indhalay dhibaatada halkaas ka taagan xasuuqa iyo barakaca iyo dagaalada aan joogtada lahayn ee ka dhacaya dalkaasi iyo sida Colonelku uu indhaha caalamka uga qarinayo dhibaatada ka taagan gudaha dalka Itoobiya dawladda Itoobiya 24 saac la soo dhaafay weerar culus ayay qaaday oo rogaal celis oo lagu doonayay gobolkan dariska laha caasimada ama magaaladiisa istiraatiijigeed ee 200 kilomitir u jirtay caasimada Taabor in dagaalyahanada laga saaro oo aha gasho wadada Addis Ababa iyo gobolka Axmaarada isku xidha jidka weyn dhulka halbowlaha ee Marawa
ويران هذا لبض مال أقول بيجي مجالات الدجال وحكي سعودي عن لوك لكن لكن دولة عرقية ضربة ويكورت مجالات أفر لا تنسى أقول بيجي وحين ربتين عند الدب أقول لك حقوقنا مركز الدب لورح لكن هو يصير تجل وذي مركز هالكاسي أي كل أذان جنرال لا أترى بدن ويران تدبق جارية وعيد ما درجة حاجة يونك أقصر ريه جنرال هذا ما اللي دري ما لما الشلاهد يسركيل بدن وقعنت اللي أقول لك يكون بحصد يكون لا وعبا أي دولة هالكاسي أي جمع ورسكاله كلنتي weer hada la qaado dhan dawladda farsamaha way ku guuleysan weyday iyo wad militariba cir iyo dhul way ku fashilantay xoogagii baan wali gacanta halkaas ku hayay xoogagan waxay leeyihiin dagaalkani dagaal maaha aan ka laabayna ama magaalo aan ka baxayna ma waan ku dagaalamay shacabku way iskaga qaxeen magaalada waxa jooga dagaalyahanada dhufayso waaweyn baa la soo galay hubka aadka culus baan la soo adeegsanaya ciidamada dawladdan waxaad moodaa in dagaalkan looga taag roon yahay dawladda Itoobiya had inta kali ay dagaalyahanadan ay kaga reynaysaa waxa diyaaradahan bayraktaar tal dhaho ay adeegsanaysaa oo قيمة بدن بانكو هي مالها هو كعلوس إيو كان جدا أي وتام يا لو جراعيا لكن سكستو يا تبى دجال كني وامد أبي حكم كيس السوري يستاهل وربعين توبي وحي قريسة أنت بدن كون هذا معارض كلا يقول بكون إحدى حادك in ninka lagu magacaabo xajurka scanner reega sababta uu haatan warbaahinta uga soo muuqday uga hadlayo inay tahay guusha degdeg ee ciidamada faana ay gaarayaan iyo ma garanaysaa horumarka ay ka sameeyaan dagaalada hadda ka socda deegaanadaasi ninkan scanner reega wuxuu kamid yahay nimanka xajirka axmaarada wala waa raga axmaarnimadu ay aad ugu weyntahay waa nin mucaarad ahaa waa nin Abiy Ahmed uu soo xidhay waa nin dawladii Koreya Tigray ay xidhay fikirka axmaarada ayuu aaminsan yahay inay axmaarada ka sharaf badan tahay dadka kale Itoobiyaanka ayuu aaminsan yahay waa nin ay marnaan u cuntay weeday wada noolaanshaha dalka Itoobiya arintaas uu ninkaasi 2023 ayuu ka yimid dalka Mareykanka dalashaan Mareykan buu haystaa maantana dagaalka wuxuu ku galayaa muuqaalka laga soo qaaday wuxuu qabaa harag la tolay حرق حوالات والله طلعي وقل ففا أي دريس كترش كيبو قبا وحنا قوان كوجار وربعين وكلها اللي إنه أرمانا ماشي كسار دون عد كستو أحمر اللي بيجستين إن لو أرجو دون ساس كوهن جبيا وحول لي معلومة صوص عد سبع ينقلنا يعني كأخذ بدين دونا تذك وطن كان أدواتين وكا أرجوسن دونا بله وأنا أد حق جرو هذا اللي يسوحته عينين هذا اللي جلسن اسكندر نيجا وقت تكري دجال كله يقول جري تحبس بوجري أيوة تكري دجال كله قاضي أي دولة أبي حدي وحين أحدن قللا سوق الجيستي أو نوع وبرشلونة وبا بلي أي دولة وحدي كده مركز تكري لقصة لابتي ولا سيدا هذا مركز على الحدا هذا ولا سيدا مركز ودر دمبيسي جمهد فانو يجمهد كلا أيوة أبابلي ويرمى عجري ماشي سكاكا عن دجالنا طور كاس وجري كدم إسرائيل بتجي وبعدين جو أريتري كبحي خب بزوج كأنه وسود الجي حدا واقع دور كوجرا وجي دورة فرنتو جوجا مركز كندر نيجا وملاحظ أوصل رئيسه قومية أحمر لا تعصن تاي دجال كوجرت ورجع أمر كودا دتك أحمر وسبعة وضع علينا هدوالله شرعي خير روح وكهذا أحمر ويصعبينه سويت فكرته وأمزيه هي أيا كتر جويس إنه أحمر موين وحكله ونرى قليه إننا نجرب مركا إسكندر نجا يمدح فانو لما أنتود waxay isku raacsan yihiin bulshada axmaarada waa leeyahay kara ilaa kuwa siyaasadda ku jira soo jooga inay dhamaanta xukunka ay ridaan Abiy Ahmed meeshii doona ka dhacay Itoobiya xukunkan waa in la rido ama ay isbedesho Itoobiya oo soo dagaal galaan dad aan la ogeyn oo Ramadan ha soo kacdo mucaarad maxaafada soo gasho